mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa noqday musharaxa kaliya ee uga hadalhaynta ee shacbiyada badan guud ahaan beegayga Soomaaliyeed. Shantii qof ee isla socotaba afar kamid waxa ay taageersan yihiin Sheekh Shariif, iyagoona kalsooni buuxda ku qaba inuu noqon doono madaxweynaha afarta sano ee soo socota hogaamin doona dalka Soomaaliya. haddaba waxyaabaha ay shacabku ku taageersan yihiin una garab taagan yihiin mudane Sheekh Shariif ayaa waxa ay kala yihiin la dagaalankii cadawga Soomaaliyeed ee Itoobiya iyo ka xoreynta gobolada dalka, dib u furistii garoonka iyo dekedda Muqdisho, dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo soo nooleynta kalsoonidooda, la dagaalanka Al-Shabaab ee ka saarista caasimadda iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya, qorista dastuurka ku meel gaarka iyo ansixinta ergooyinka kala yimid dhammaan gobolada dalka, ka shaqaynta dib u heshiisiinta dagaalbeeleedyada ka jira qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya, soo xulista xildhibaanada golaha shacabka iyo hirgelinta doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo markii ugu horeysay lagu qabtay gudaha dalka. haddaba mudane xildhibaan fariin ka socota shacabweynaha Soomaaliyeed ayaa ku leh dalka badbaadi oo u door mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Sheekh Shariif